بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب إني مغلوب فانتصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله موضوعنا maanta waa موضوع aad u muhiim ah, wuxuuna ku salaysan yahay dhinaca maaragtay xaasleyda. Mowduucan xaasleyda ayaa loogu talagalay. qof aan xaas ahayn wuu iska dhageysan karaa maaragtay لزيادة العلم والمعرفة. موضوعنا درسيgan مثلا kelmadan aan soo jeedinayo dars cinwaankeeda waxaa la yiraahdaa ninkeyga waan jeclahay laakiin gabdho badan ayaan nala soo xariiro oo maaragtay maasha Allah oo la wada qabo badankooda maasha Allah wayna maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay ilaahay cilaaj ayuu caafimaad siiyey. dadka qaarkoodna weli maaragtay cilaajka ayay dhinac ka wadaan oo wadamo badan ayay nagala soo xariiraan. marka insha Allah kelmadan ayagan u jeedinayaa. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا يعني إنه إلهي سبحانه وتعالى يعني كلمتان بركة إنه قدر إن شاء الله خير بإذن الله الكريم وقت جان إلهي سبحانه وتعالى إنه نو بركة وأن كلمتان كسو جيدين إن شاء الله. وحد لسعوتين ولا ليال إن ما ركتي دروس سيدة بدنا عن كل شيء يجري إن ما ركتي شيئاك وحيالها ومهم سن وحوق سارة وحوا إنه دين تكاسار. diinta inuu qofka oo ka saaro ayuu jecel yahay, hadafkiisa ugu muhiimsan waa arintaas. marka hadduu taasi waayo waxa kaliya oo ku gambado wax waa inuu dadku isku diro, gaar ahaan dadka isjecel ayuu isku diraya, mise dadka iskugu dhow ayuu isku diraya, fitna ayuu dhex dhigaya. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuu ku sheegay in oo maaragtay shaydaanka aad iyo aad uga waswas badan yahay, oo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo يسلط الله سبحانه وتعالى الشيطان على الإنس. ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaanka ayuu dadka soo aadiyaa. qofkii raacana wuu raacay, qofkii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadini wuu badbaadaya. marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye shaydaanka inuu kala saaro labada qof oo isqabo ayuu kala saaraya, way kala tagayaan oo way isfurayaan. marka gabdhaha badanaa maaragtay markay noo soo dan sheegtaan oo soo maaragtay ay ka hadlayaan nimankooda, waxaad arkaysaa in oo maaragtay jacayl aad iyo aad ay u qabaan, oo laakiin waxaad dareemaysaa inuu wax ka hortaagan yahay jacaylka ay ninkeeda u qabto, oo wax oo maaragtay oo iida ka tan weyn oo ninkeeda ku diraayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala horta qur'aanku wuxuu ku sheegay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala guurku wuxuu ka dhigay wax arin oo sakan lagu dego qofka oo xasilooni iyo raaxad oo ku dareemo. laana qofka waxa kaliya oo ku hormar uu ku gaari karaa markuu gurigiisa oo xasilooni iyo raaxad oo ku helo. xasilooni iyo raaxad kaliya ma aan xariis iyo jacayl waa inuu ka soo helaa gurigiisa. dadka badanaa haddaad aragto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan horumar ku gaarsiiyey, waxaad fiirisaa gurigiisa wuxuu dhinaca uu ka yimid, meesha uu ka yimid haddaad aragtid waxaad arkaysaa qofkan inuu ma aragtay qof garab qabsado inuu helay oo garab istaago. laakiin haddaad aragtid dadka badanaa oo faashiliinta, dadka horumar aan gaaraynin, waa dad oo ma aragtay dhinaca guriga ma aragtay damage ka soo gaaray, dhib ka soo gaaray. marka guriga qofka markuu ku waayo naxariis iyo jacayl markuu ka waayo waa marka uu maaragtay noloshiisa cariiri ay noqonayso, oo waxa uu waanayo barakadii inuu waanayo, khayrkii inuu waanayo. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري قفك وحوى إلهي سبحانه وتعالى هادو وحسيي
وحصيه ووفي عن وح إلهي كسينا أدون كانوا وامرأة صالحة وناق إلهي سبحانه وتعالى جيتك إلهي سبحانه وتعالى هايستو وحق يدا قرنيسو وحق حق الزوج قرنيسو هذا أرنتاس أويسو وحوي نلش هذا ودن وحين نقول إنسان نلولو آدي وادك marka taasi waxaan ka hadlaynaa dadka aan jiranayn way mowduuca oo aan jiranayn laakiin dadka jiran waxaad arkaysaa gabdhaha jiran inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo imtixaan aaga dhigay inuu shaydaan ku soo ibtileeyay jinni ha noqdo sixir ha noqdo il ha noqoto marka waxaad arkaysaa dhib weyn ayay kala kulmaysaa siday ula macaamuli lahayd ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd ninkeeda marka waxaan insha Allah aan qodobyal ayaan soo qoray oo aan ku sheegi doono tariiqadooyinka ma aragtay shaydaanka u raacayo sidoo naagto ninkeeda uu waswaas ugu geliyo uu ku diro ninkeeda ku diraya marka maxaa kamid ah waxyaalo qodobyal ayaan soo qoray waxaa kamid ah qofti wuxuu ku abuurayaa cabsi ayuu ku abuurayaa wuxuu ka dhaadhacsiinayaa shaydaanka mise jinni ha noqdo mise sixir jirkeeda ku jiro ha noqdo mise il ku dhacday ha noqoto waswaas ayay u keenaysaa wuxuu ka dhaadhacsiinayaa inuu ninkeeda ma aragtay naag kale ku guursan doono inuu naag kale ku guursan doono oo ninkan markuu maanta maal yeesho mise lacag oo yeesho inuu naag kale ka raaci doono marka waxay ku dadaalaysaa xoogga ay saaraysaa sidoo ninkan lacag ku oo hanti ku lahaanin wax waliba oo maanta ma aragtay mustaqbalkiisa ku jiro wax waliba oo iyadii caruurteeda u fiican oo maanta dakhliga soo ziyaadinayo hadday aragto waxay isku dagaysaa inay qofkan ay ka mashquuliso waxaa dhici kartaa inay shaqada telefoon ugu dirto cunugiyaa jiran waxaanan macno lahayn inay ugu wacdo oo telefoon ugu dirto waxaa dhici kartaa inay ma aragtay ay koos garayso qofkan in shaqada laga soo buriyo mise waxaa dhici kartaa inuu ninkan shaqadiiba uu naco laana guriga markuu yimaado dhib kale iyo mashaakil kale ayuu ku furaysaa oo daal dartiisa ma aragtay ayuu shaqada aga soo tagaya laana shaydaankeedu wuxuu ka dhaadhacsiiyey maanta adoo ninkan lacag yeesho adoo lacag yeesho gabar kale ayuu kula guursanaya marka iyada ninkeeda way jeceshahay laakiin waxaan ayaa waswaaskana ayaa ku badan qayb waa sidaas qayb kalena waxa waaye waxay raadinaysaa dharkiis ayay urinaysaa way baaraysaa shaki kale ayaa ku abuurmaayo oo leeyahay ninkaan ma aragtay dumar kale ayuu la socdaa dharkiis ayay urinaysaa waxaa kale isku arkaysaa in oo ma aragtay habeenkii waxay riyoonaysaa shaydaanku wuxuu tusinayaa ninkeeda oo ma aragtay oo naag kale la jiifo dhinac xaraan ahaan uu la jiifo mise xalaal ha noqoto oo ka dhaadhacsiinaya inuu naag kale qabo waxay kaloo isku arkaysaa qof waliba way u fiican tahay oo si macaan ay ugula hadlaysaa laakiin ninkeeda iyo ma aragtay markii la gaaro waxaad arkaysaa inuu kelmadda uu sheego ma aragtay ay dhibsanayso xanaaqa halkaan ayuu ka saaran yahay xanaaqan waxaa kuu sii dheer inay ma aragtay ninkeeday aflagaadayso ee caytin ee la fariisato meesha oo asalkiisi iyo aabihii iyo hooyadiis iyo familigiis iyo qof waliba ay cayso waxay kale isku arkaysaa in ay dalbato furitaan ayay dalbanaysaa maanta oo dhan waxay leedahay walaalo waxaan rabaa inaad u furtid haddaad nin rag tahay maa i furtid nin rag ma tiid haddaad nin rag ahaan lahayd mar hore ayaad i furi lahayd marka ninkeedan oo ku yiraahda arintaas walaal acuudu billayso waxaan ilaahay ka cabso shaydaanka iska naar acuudu billahi min ash-shaytaan rajiim dheh markuu ku yiraahdana waxaad arkaysaa qoftaasi in ma aragtay inuu ay aad ugu adag tahay inay tiraahdo acuudu billahi min ash-shaytaan rajiim hadday tiraahdana waxaad arkaysaa afkeeda inuu kaliya ka soo baxay oo qalbigeeda uusan ka soo bixinin waxaa laga soo wariyay nabiga calayhi salaatu wassalaam in laba nin ma aragtay fadhiga nabiga calayhi salaatu wassalaam ayagoo jooga isdagaaleen oo xanaaq ma aragtay isku xanaaqeen marka nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri
haddii ma aragtay ay dhihi lahaayeen kelmad ayaa jirta hadday dhihi lahaayeen xanaaqooda heerkaas ma uusan gaari lahayn oo xanaaqahaaya wuu ka degi lahaa mid ka mid ah marka wuxuu yidhi kelmaddaas waxay ahayd acuudu billaahi min ashaytaan arajiim marka qofka oo markuu xanaaqo inuu cuudubillaysto ayaa waajib ku ah marka ayada waxaad arkaysaa inuu ma aragtay cuudubillayska aad iyo aad dhib ugu yahay waxaad kaloo isku arkaysaa inay ninkeeda ma aragtay ay ka dheeraato ee isku dayda markuu guriga yimaado inay qol isku soo xirto mise qol kale iska fariisato waxaa dhici kartaa inay wax kale iska fiirsanayso mise qof kale inay telefoon la hadlayso oo ma aragtay wax kale ee mashquula iskaga dhigayso waxaad arkaysaa xataa familigeeda ma aragtay ahalkeeda hooyadeeda aabaheeda in oo ma aragtay dhib ay ku tahay inay la kulanto mise inay la hadasho mise inay telefoon kula hadasho ayaa dhib ku ahaanaysaa marka iyadoo jaceyl ay u qabta ninkeeda waxay ku leedahay aniga waan jeclahay laakiin wax ayaa iga hortaagan gaar ahaan ninkayga oo igu diraayo waxaa kaloo ku badanaysa ma aragtay yacni murug badan ayaa galayso mustaqbalka ayay ka cabsanaysaa waxaad arkaysaa yacni inay ma aragtay xusunka ku badanaayo faraxa ku yaraanayo nolosheeda murtax kuma noqonayso wax waliba ninkeeda maanta hadda u suubiyo wax ka maqan ma leh guriga wax walibaa yaal ilaahay caruuruu siiyey ilaahay lacaguu siiyey ilaahay baabuuruu siiyey ilaahay guryuu siiyey waxaad arkaysaa ido waxaasoo dhan ilaahay siiyey waxaad arkaysaa inaysan weli ma aragtay ay murtax ay ninkeeda ku ahayn oo nolosheedana ayna murtax ay ku ahayn ayna ku faraxsaneen waxaasoo dhanna shayddaanka ayaa ku abuuraya waxaad kaloo arkaysaa in oo ma arag shallaay badan ayuu shaydaan ku abuuraya ayadoo ninkeeda jecel ay u qabto shayddaanka ayaa waxaa ku abuuraya shallaay badan war ninkaan maxaan u guursaday war nin ma aniga adduunka aan ka waayay ma aniga dabaal baan ahaa marka ninkaan aan guursanayo war maxaa caqligayga xaggoo aaday ma adduunka ninaan ka waayay ninkii oo dhan ayaa loo urinaya guriga markuu soo garo sanka ayay qabanaysaa wax baa aga soo uraya markuu sariirta soo koro sariirta intay ka kacda qol kale iska jiifanaysaa fadhigay iska aadaysaa mise qolka carruurta ayay la jiifanaysaa marka waxyaalaha wuxuu soo xasuusinayaa oo kale wixii hore u dhacay wax 10 sano ma 15 sano laga joogo khilaaf yar oo dhaxmaray ayuu sheedaanka soo xasuusinaya wuu soo xasuusinaya wuxuu leeyahay ma xasuustaa maalintaas wuxuu kugu yiri war ninkan hadduu ku jeclaan lahaa waxaas kuma dhihi lahayn waxyaalahaas ayuu soo xasuusinaya wuxuu kaloo soo ku abuurayaa waad dhiman doontaa marka ninkeeda ay u tagaysaa haddaan dhinto adiga naa kale maad guursanaysaa haddaan dhinto su-aashaasi marka waxa waaye nimanka qaarkood waxay leeyihiin maxaa aniga naag la-aana uma ahaanaya haddaad dhimato naag kalaan guursanaya kuwa qaarkoodna waxa waaye niyada ayay u dhisaayaan waxay leeyihiin haa naag kale ma guursanaya naag kale maxaan ku falaya marka haddii uu yidhaahda naag kalaan guursanaya ee adiga horeyaadba ii jecleen ayay leedahay meesha ayay fitno kale iyo mashaakil kale ka bilaabaysaa marka waxa waaye waxaa kaloo ay isku arkaysaa guriga markuu soo galo in ma aragtay ay dhibsanayso jarays ayay dareemaysaa waxay kale dareemaysaa cabsi oo zaa'id ah ninka ayay ka cabsanaysaa indhihiisa ma saari karto hoos ayay u degaysaa kartida ayaa ka tegaysaa xaqa waxay rabta ma sheegi karto marka waxa waaye waxyaalahaas oo dhan ayay isku arkaysaa naagta marka waa waxyaalaha badanaa guryaha maaragtay hoos ula galo oo baabiyo waxaad arkaysaa ninkeeda maasha allah يعني ما أنت هدو ما أردت جرو أو كأركو شيوخ ده أيو لآدايا ماشي رقية أيو جينايا مال ولا ما أردت أيو علاج لوجو شيء أيو لآدايا جعل أيو تسينايا إيدو ساس إيتا واحد أركيسا إيدا ما أردتي وحي ما أردت داعد وما قادنيسو داعد وما قادنيسو وحيل يعني داودي مركي وكانو داودي عبي ميسو ميلي إسكا ديجيسا waxaa dhici kartaa inay ma aragtay ay ka dhigato jaceelkii oo asaga uu qabay inay ma aragtay ay marmarsiye ay ka dhigato oo wax waliba ay ku kacdo waxaasoo dhanna waxaa ka keenayo sheedaanka ayada jirkeeda ku jiro marka marmarsiye ayay ka dhiganaysaa war aniga waan jiranahay waxaan kuu dhahay kelmaddaas waxaan kuu dhahay mise waxyaalaha aan kuugu sameeyey waxaasoo dhan sheedaanka iga keenay mise waxaasoo dhan waxaa iga keenay sixirka ayaa iga keenay soo ma ogtid adiga sheekhi markaan u tagnay
inuu yiri qoftaan way sixran tahay qoftaan waa saa isaa adiga marka waad inaad ogaataa inaan qof jiranahay aan ahay marka waxaas ayay marmarsiya ka dhiganaysaa danteeda ayay ku gaaraysaa ninka ayay aflagaadaynaysaa markaad dhinac ula hadashid walaalay maxaasaan u suubis wallaahi sheekh aniga wallaahi ninkayga waan jeclahay laakiin waxa iga keenay ma aqaan marka mar waliba aniga markaan wax sameeyo waa inaan waxaan marmarsiya aan ka dhigtaa oo aan dhahaa aniga waan jiranahay waxaana shaydaanka ayaa iga keen inaan mar waliba aan ku iraahdo waay ku leedahay marka waxa waaye waxaad arkaysaa ma aragtay inuu qofka ma aragtay laga tan badan yahay waxaa dhici kartaa ninkii inuu yahay nin ma aragtay intaasoo sano u sabray 15 sano 20 sano caruur ma aysan dhalin jaceyl dartiisa ayuu u qabaa ayuu la degan yahay sidaas darteed ayuu ula nool yahay laakiin ayayda mar waliba waxay ku isku dayaysaa inay ninkaan ma aragtay ay xumayso oo wixii ma aragtay ayadana oo ka tanbadiyo laakiin walaalayaalo waxaad ogaatiin gaar ahaan gabdhaha ayaan u sheegayaa wax waliba adiga kugu dhaco oo adiga ma aragtay oo ninkaaga aad ku samaysid walaalay laana sixrada ayaa kala ah way kala darajo waaweyn marka adiga marmarsiya inaad ka dhigata ma aha oo aad ninkaada xumayso oo mar waliba hadal xun aad ku soo tuurto aad tiraahdo walaalo aniga waa soo ma ogid inaan jirana waxaana sixirka ayaa iga keenay marka mar waliba inaad adiga marmarsiya aad ka dhigata ma aha waa ina ilaahi subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataa sixiradu waa kala level ayay kala leeyihiin darajo ayay kala leeyihiin waxaa jira waxyaalo adiga aad controli kartid iyo waxyaalo adiga kaa tan badan ayaa jiro marka ninkaaga adiga waxaa la rabaa inaad maaragtay is ilaaliso waxa hadalka afkaaga ka soo baxay waa inaad fiirisaa wallaahi waxaan aragnay gabdho badan oo shayaatiin jirkooda ku jiro oo ilna la soo xariiro oo telefoon noo soo diro mid oo caniid ah ayaa jirkeeda ku jiro sixir adag ayaa jirkeeda ku jiro laakiin waxay ku leedahay sheekh oo aniga ninkayga waan iska ilaaliyaa dhinaca ninkayga in layga soo maro ma rabo caruurteeda in layga soo maro ma rabo shaydaanku wuxuu ugu leeyahay mindidaas qaado mindida intuu jiifa geli ayuu leeyahay mise dab inaa biyo kuleysid biyo kuleel jirkiisa ku shub ayuu leeyahay waxyaalahaas oo dhan ayuu amraya mindiyada xataa inaan qaado ayaa meel ku qariyay tir waan qariyaa waxaan ka cabsanaa marka qaarkood inuu iga tanbadiyo inaan mindida aan qaato oo ninkayga aan geliyo marka waxa waaye gabdhaha way kala yihiin wayna kala karti fiican yihiin way kala adag yihiin marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad hadday daacad ay kaa tahay oo adiga ninkaaga aad jeceshahay oo anaga mar waliba aad noo sheegtid inaad ninkaaga jeceshahay oo wax adiga kaa tan weyn oo mararka qaarkood waxyaalo qaarkooda uu kugu amraayo marka walaalay adiga naftaada waxaan kaa baryaynaa mise waxaan kaa codsanaynaa inaad is ilaaliso oo adiga waxaan adiga aad kontaroosho ma aha inaad oo iska ahaado ilbaab furan inaad iska ahaato oo shaydaanka wax waliba oo kugu sameeyo mise sixirka inuu wax si waliba oo kugu kontaroolo laana qofka bani aadamka walaalay xad ayuu leeyahay oo kuu sabraya markuu xadkaas aad dhaafto waxaa dhici kartaa inuu iska dhaqaaqo marka dambe oo dhaho qoftaani ma aragtay intaasoo sana ayaan usoo sabrayay laakiin wax isbedelku ma arkin waxa waaye wuu daalaya waxaana ku dambeynaysa walaalay furitaankana ma aragtay waa wax oo ma aragtay oo guryaha baabi'iyey zamankan aad iyo aad ayuu u baabi'iyey dad badan oo ma aragtay ayuu ma aragtay oo waxa la galay si xun u galay caruurtooda ku baabi'een gaar ahaan dadka ma aragtay wadamada gaala degan wadaad fiiriso ilmaha ma aragtay oo mashaakilka sameeyo oo daraaga isticmaalo mise wax dilo waxaad arkaysaa guriga ay ka soo baxeen waa guri oo ma aragtay oo aabii hooyo aan ku nooleen marka adiga diyaar ma u tahay ma inuu ilmahaaga ay ka hadlaabaan ay ciyaal suuq ay ka noqdaan oo waxbarashada ay ku xumaadaan laana guri haddii aabba laga waayo waa mashaakil aad iyo aad ay u xun tahay marka waxa waaye adiga inaad barato in aad shaydaanka iska celin karto inaad iska ilaalin karto yow ninkaaga kugu dirin haddiiba aad aragtay ma aragtay in oo ninkaaga ma aragtay oo kugu daray salaada u carar weyse qaadka u carar ama qol iska gal ninkan waxaan ka codsanaynaa asagana sidaas oo kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sabro nin hadda kahor waxaa la yidhi ataabiciin ka mid ahaa oo naag dhib u keentay way rafaadin jirtay waxaa la yidhi adiga naagtan ma iska furtid wuxuu yidhi yaakhi maxaan u furaaya u yidhi naagtan maanta haddaan aniga aan furoo yidhi
nin kale ayay u tagaysaa oo mu'min ay rafaad u keenaysaa marka ninkaas dhibka intuu gaari lahaa dhibka aniga ha i gaaro yiri anaa qaadanahay marka adigeeno hadduu ilaahay subxaana wa tacaala naagtaan kugu soo ibtileeyey marka adigana inaad u sabartaa la rabaa inaad u sabarto waxaa dhici kartaa naagtaani inay tahay naagta adiga aad jannada aad ku gali lahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qoftaani sababkaaga dhigay in aad maaragt aad janno aad ku gasho marka adiga ilbaabkii jannada haddaa iska xirto waxaa dhici karta inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilbaab kale uu kuu furin marka inaad u sabarto ayaan kaa rabnaa insha allah waxaa kaloon kaa rabnaa insha allah inaad u naxariisato il naxariis inaad ku fiiriso laanna waan la socdaa qof maaragta oo jiran oo socdo waa adagtahay si loola dhaqmo qofkan wuu jiran yahay laakiin waa qof socdo oo nool qof jiran waxaan arki jirna oo sariir saaran laakiin qof jiran oo socdo xoogaar way adag tahay inaad la dhaqantid way adag tahay laakiin waxaad ogaataa walaalow qoftan kula nool inay tahay qof jiran waa qof jiran oo u baahan naxariis iyo ma aragta iyo raxmad inay kaa hesho inaad ma aragta isdejiso markay kacsan tahay aad aragto guriga iskaga bax salaadaada iska aad mis banaayaha ku soo wareeg insha allah ilaa ay ka degto markay degtana soo noqo marka adiga hadday iida ay mucaanad ay kugu noqoto ay canaad kugu keento adigana adiga sidooda kale canaad inaad ugu noqoto ma aha waxa waaye yacni qaylo haddii qaylo kale lagu daro wax faa'iida ka soo baxaaya ma leh marka adiga mar waliba inaad isdejiso ayaa lagaa rabaa waxaad ogaataa qoftaani waa qof oo aad iyo aad waxa uu naxariis u baahan waana qof jiran waxaana ugu fiican in oo maaragtay labadiina maaragtay inaad fiirsataan duruusta maaragtay oo xuquuq الزوجين qof waliba xaqa uu qof kale uu ku leeyahay inaad barataan qof waliba qof kale sidoo ugu soo xadgudbin ayaa fiican inaad dhegaysataan waxaa fiican activities inaad isla samaysaan inaad qur'aan isla akhrisaan aad isla fariisataan waxaa fiican inaad adkaarta isla akhrisaan haddii guriga ma aragti guriga oo idin yaallo kitaab riyaad الصالحين xadiisayn inaad isla akhrisaan oo sharaxiisa isla fiirisaan mise duruusa isla dhegaysataan waxyaalahan oo dhan wuxuu guriga keenayaa naxariis iyo jacayl iyo raxmad ayuu keenayaa maxabadda ayaa soo ziyaadaysa sacaadada ayaa soo ziyaadaysa happinesska ayaa guriga ayaa imaanaya marka waxyaalahaas oo dhan aad la timaadaan ayaa fiican inaad banaanka geyso aad ka soo farxiso oo meelo aad soo wareejiso iidan waxyaalaha maaragta jacaylka soo siyaadinaya waay waxaa kaloo lagaa rabaa nabiga calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu yihi laa yafruk mu'mina in wajada minhaa khulqan sayi laqiya khulqan aakhar xadiiskan nabiga uu ku sheegaayo qofka mu'minadda ah yani ma deeriyo oo waxa waaye yacni ma dhaho qoftan boqolkiiba boqol waa qof xun laanna waxa waaye waxaa jira wax ayada ay ku fiican tahay adiga adnaa kale ka helaynin qof waliba ilaahay quality ayuu siiyey sifad ayuu siiyey ay ku fiican tahay marka qofka ma dhici karta boqolkiiba boqol qof xun inuu ahaado waxaa jiro oo ilaahay siiyey qofkan oo adiga kugu qasbayso mise ku reebayso inaad qoftan noloshaada aad la sii wado marka wax baa jiro waxaas inaad fiiriso dhinaca oo ma aragti khayrka waa inaad ka fiirisaa daa'iman dhinaca khayrka waa inaad fiirisaa oo aad ilowdaa waxa sharka laanna negative side haddaad mar waliba aad fiiriso qofti waxay kuu noqonaysaa qof shaydaan ah qof inkaaran ayay kuu noqonaysaa marka waxaas inaad iska ilaalisa naagtana sidaasoo kale ayaa laga rabaa waa inaad fiirisaa ninkaaga inta uu kuu sabray inta lacag oo kugu bixi mudaawaad iyo sheekh kuu geey iyo waqtiga adiga oo ku geliyo waxaasoo dhan waa inaad fiirisaa waxaa maanta haddoo ninkan kaa tago ma dhici kartaa nin kale inuu waxaas kuu samaynayo su-aashaas waa inaad isweydiisaa nin ka fiican ma helaysaa marka su-aashaas waa inaad isweydiisaa walaale marka waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ka cabsataa waa inaad barataa sida sixirka aad u kontrooli lahayd waa inaad barataa sida shayddaanka adiga aaga raan lahayd jinniga jirkaaga ku jira adiga aaga raan lahayd sidoo gurigaaga uusan u dumin sidoo ninkaaga oo kaaga cararin ninkaagana hadduu kaa tago waxaad ogaataa ninkaaga hadduu ku furo waxaad ogaataa shayddaanka kuma dhaafaayo caruurtaada ayuu kugu dirayaa caruurtaadana waxa waaye hal ayay guriga aga baxayaan way kugu culoowaayaan waxay arkayaan inaad khaldan tahay waxayna ogaanayaan inay adiga sabab u ahayd inaad ilmaha inuu ninkaaga guriga oo ka baxo
badanaana waan aragnay boqolaal qof ayaan aragnay caruurta markaan la fariisanay waxay leeyihiin sheekhow habarteen wayna necban tahay aabbaheenan waxaa guriga ka bixi waa iyada ilmihiina kuma jeclaanayaan ninkana meesha ayaa ku waynaysaa marka waa inaad caqli isku yeeshaa waa inaad ka adkaataa sheekh waa inaad ka adkaataa shay jinniga jirkaaga ku jiro sixirka jirkaaga ku jiro waad ka adkaan kartaa wax waliba oo wax mustaxiil ma jiro impossible ma jiro wax waliba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ma arka jirro keeni daawo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u keenay marka waa inaad barataa sidaad iskaga celin lahayd waa inaad barataa sidaad isku daaweyn lahayd qur'aanka u carar dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala u carar haddaad aragtay shayddaanka inuu kugu diraayo ninkaaga waxaadna barataa ma aragtay inaad ninkaaga xaqiisa aad siisid ninkaaga xaqiis waa inaad siisaa lianna inamaa huwa jannatik aw naarik oo yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam jannad ku galaysaa mise naarad ku galaysaa ninkaan marka waa inaad iska ilaalisaa walaalay biidni illahi alkariim intaas ayaan hadda soo koobay waxaa dhici kartaa waxyaalo kale inay jiraan waxa qisadii ugu xumeed aan arkay oo aan la yaabay oo ilaa ay haddana aan la yaabanahay waxa waaye gabar hadda ka hor anaga ma aragtay iyo aan arrinteeda la soconay waxay yacni heer waxay gaartay in ay ma aragtay ninkeeda meesha oo ka shaqeeyo inay kaamare uu ku dhejiyey meesha uu ku shaqeeyo dukaanka uu ku shaqeeyo ayaa kaamar ay ka dalbatay inay kaamara uu ku dhejiyo marka kaamarada markuu ku dhejiyey ayadana telefoonkeeda ayay ka fiirsanaysaa iyadoo gurigeeda joogto ayay telefoon ka fiirsanaysaa ka warna heerka uu shayddaanka gaarsiiyey heerka uu jinniga gaarsiiyey marka qof markuu dukaanka soo galo dumar hadday noqoto oo xoogaa yar hadalka uu dheeraado markuu gurigu yimaaday uu leedahay qoftaas maxaa maaragtay intaasoo waqti a ula hadlaysa marka shayddaanka heerkaasuu ku gaarsiinaya iska ilaali walaala insha allah heerkaas iyuusan ku gaarsiinin ninkaaga yaa lagugu dirin ninkaaga indhahaada waa inaad ka jeclaataa waa inaad ninkaaga soo dhawaysataa lianna walaalay zamankan gabdhaha garoobka aad iyo aad ay u bateen marka dadkaas inaad ka mid noqoto ma rabno haddaad aragta inaad ma aragta inay sheekada ay kugu xumaatay ay sheekada kugu adkaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka usoo kac laba rakac ilaahay subxaanahu wa tacaala u duko ilaahay bari ilaahay hortiis ku ooy ducada waa aad iyo aad waa waxa waaye silaax fataag waa hub oo aad iyo aad u adag ilaahay bari inuu gurigaaga xasiloon ku soo dejiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkaaga qalbigiisa jaceyl ku abuuro sidousan kaaga tagin oo kugu sabro ilaahu qalbigiisa sabr ku soo deji dheh ilaahay bari sadaqadana baxso qof haddaad aragta maskiina iskiga sadaqayso u niyeyso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigaaga kuu dejiyo wallaahi shayddaanka muslimiintu wuu ka daalay inay gaalo noqdaan waxaa kaliya hadda xoogga uu saaraya waxa waaye gurigiisa u baabin lahaa oo u dumin lahaa oo ma aragtay oo dadkii ku kala tagi lahaayeen oo meesha naceeb iyo karaahiya oo dhex dhigi lahaa iyo nufuur marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa aniga aad waa idin soo ducaynaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiina idin dejiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aragtay xasilooni inuu gurigiina kusoo dejiyo lianna guri degan ayaa niman rag ka soo baxaan guri degan oo jecel iyo naxariis yaalla ayaa niman rag ka soo baxaan oo ummadda wax u qabsado oo ma aragtay ummadda horumar gaarsiiyo ummadda aad iyo aad ayaa dhinac kasta loogu soo galay marka waa inaad ma aragtay guriga waa inuu ma aragtay u ahaadaa guri adag oo ahliddiin ahlilkhayr oo ka soo baxo insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa dhici kartaa sixirkaani wuxuu kugu dhacay waxaa dhici kartaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu arkay noloshaada inay nolol kale ay tahay oo ma aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u soo noqoto ayaa dhici karta sidaas darteed inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sixirkan uu kugu ibtileeyey marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu xasilooni iyo raaxad inuu ilaahay ku siiyo kulligiin inuu ilaahay idin siiyo insha allah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sixirkan gurigiina ka bixiyo jinkaan jirkaaga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka bixiyo ishana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kaa saaro markii dadka ay arkeen adiga iyo ninkaaga inaad isjeceshihiin jeceyl idin dhex yaallo ayay waxaa dhici kartaa inay ila idinku dhacday oo ishaasi karaahiyad iyo ma aragtay iyo inaad dareenteen karaahiye inay idin dhex dhigtay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka saaro waxa idin haayo hadalkayga insha allah saas ayaan kusoo gabagabaynayaa subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.